run ahaantii ilaawi maayo sheekadan. Sheekadan waxay ku dhacday maalin aan dalxiis u joogay waddanka Mareykanka. Magaalada California ayaan dalxiis u joogay. Maalinkii oo dhan waan daalnaa, habeenkii xilli dambe oo habeen ah ayaa waxaa igu dhacday waxaan arki jirin inta aan joogay hoteelkaas. Xilligaasna waxaa lagu jiray xilliga corona. Muuqaal yar ayaa ka soo baxay qaybta hore ee saqafka, kadibna sawiro ayaan ka qaaday. Anigoo yaaban waxaan u maleeyay in xayeysiis ay yihiin. Kadibna nalka ayaa dadamay. Si dhaqso leh ayaan sariirta ugu soo kacay. Kadibna waan iska damiyay guud ahaan. Waxaan daawanayay markaas TV. Xilli dambena haween waa ahayd. Waxaan ku xiranahay channelka Shakaafta oo in badan aan ka daawado sheekooyinka cabsida badan. Runtii xilli dambe oo habeen waxa ii soo dhacay telefoon. Mana ilaawi karo sheekadan. Waxa lagu dhahay waxaan ku haynaa delivery, fadlan albaabkaaga soo istaag. Kadibna waxna ma aan dirsan, cidna ma aan wax u dirsan. Anigoo yaaban ayaan waxaysnaa qofkan yuu yahay oo saacadan wax ku keenay. Aad baan u yaabay. Runtii geesahoo dhan ayaan iska eegay. Kadibna waxaan isku dayay in aan albaabka fiiriyo cid uu yahay cid kale. Waxaan huwa markaan inuu ahaa qof aniga ka shakiyay. Qof weyn ayuu ahaa oo aan ka baqay. Runtii waa nin tuugo kale. Ilaah waxaan ka baryay inuu wax dhib ii geysan. Sidii ayaan albaabka ugu soo xiray. Kadibna booliiska ayaan la xiriiray. Kaamirooyinkii oo dhan ayaan tusay ninkaas. Dabagalkiisa waa la arkay oo waa la soo dabagalay. Wuxuu ahaa nin hore aan shukaansan jiray. Kadib sidii ayaa maxkamad loo soo saaray. Ninka wuxuu damcay inuu nafsadii dhaafiyo. Runtii aad